بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوين حاف شيخ شاكر مدح حكومة قولها وزير هذا الدولة الفدرالية halkan nagala jooga iyo xildhibaanada labada aqalka sare iyo golaha shacabka golaha fulinta dowlad goboleedka galmudug iyo xildhibaanadooda salaadiinta ogaasiyada nabadoonada ciidamada amniga oo noo suurtageliyay inaan caawa halkan ku kulanno shacabka halkan fadhiya ee sharafta badan gobolada waa beri galmudug iyo sida wanaagsan ee runtii heesaha qiirada leh oo wadaniyada ay ku jirto ay noogu sameeyeen kooxda Bambeyda bahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Allah ma hadskale ilaahayna khalqay oo awood lahaa oo noo suurtageliyay intaanoo qof oo meelo kala duwan ka kala yimid noo fududeeyay safarkii anagoo caafimaad qaba halkan aan wada fadhino ilaahay ina siiyay naxariista iyo wanaaga iyo quruxda iyo wax kasta aan haysano. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka reer Dhuusamareeb sida sharafta badan ee walaaltinimada leh ee nagu soo dhaweeyeen. waxaa ka muuqatay runtii shucuur wadaniyad iyo shucuur waxaa ka muuqatay dowlad jacayl aad iyo aad runtii kaga mahad celinaa sida wanaagsan aad marti geliseen intaanu erga ah oo 700 kor u dhaafaysa iyo guddiga dib u heshiisiinta sida wanaagsan aad u soorteen aad u soo dhaweyseen ee u dareemeen inay joogaan hooygooda gurigooda aad iyo aad runtii uga mahad celinaa shacabka magaaladan. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ra'iisul wasaaraha oo runtii juhdi xoog la geliyay shaqo badanna runtii ka qabtay muddo 2 bilood really ku dhowna halkan joogay oo meel walba tagay haday tahay tuulo haday tahay magaalo la hadlay oo dhaqameedyada halkan fadhiya qaarkood ama intooda badan la hadlay dhalinyarada dhiirigeliyay u macneeyay sababta loogu baahan yahay dib u heshiisiin iyo sababta loogu baahan yahay in dib loo dhiso dowladda aan haysano ee galmudug aad iyo aad runtii aan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan uga shaqeeyay ciidamada dhiirigelintooda isku dhafkooda diiwaan gelintooda dhinac walbaba iyo in magaaladan ay noqoto runtii isaga iyo Sheekh Shaakir ka wada shaqeeyaan inay magaaladan noqoto magaalo ummadoo dhan ay wada leedahay cid walbana ay martigelin karto. aad iyo aad runtii shaqada wanaagsan oo qabtay aan uga mahad celinay. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalkay madaxweyne xaaf runtii muddadii aan wada shaqeynay colorful iyo ahayd waa isku jirtay waqti fiican waa soo qaadanay bini aadamkuna khasbiyan marka la wada shaqeeyo mugdi waa imaan karaa laakiin waxaan markhaati ka kacaya aan markhaati furaya inuu yahay oday Soomaaliyeed mas'uul inuu yahay nabadoon inuu yahay mideeye inuu yahay tanaasula inuu yahay oo marka uu arko xaaladdu inay sidaas u cakiran tahay u tanaasula shacabkiisa. qofka bini aadankana waxa lagu cabiraa legacy ama wuxuu ka tago waxa lagu cabiraa marka uu ka tagayo xukunka yaa lagu cabiraa iyo sida uu uga tago. tanaasulku waa geesinimo. qofka aan tanaasulin waxaan u aqaanaa inuu fulay macnaheedu waxay tahay tanaasulka markuu arko qofku inay xaaladdu cakiran tahay wixii uu abuuray ama wixii uu dhisay ee burbur ku socoto inuu yiraahdo waqtigeyga waa dhamaaday hawshan dadkii ku habooneed ha loo gudbiyo. aad iyo aad runtii ugu mahad
ugu mahadsan yahay inuu runtii kusoo wareejiyey hawshii dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinaya abaalkeeda iyo sharafkeedana isagaas kale. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ahlu sunno. waa xaqiiqa ummaddu si sahlan iyo wax ku iloobaan. magaaladan halkan annagu nabadaan uma fadhin lahayn haddaysan ahlu sunno ahayn. dad badan baa ka shahiiday sidii magaaladan ay nabad u ahaan lahayd iyo nawaaxiga galmudug inteeda badan. waxay u istaageen in khawaarijtu aysan soo gaarin meeshan. waxaan ognahay magaaladan 4 jeer inay isku dayeen khawaarijtu inay qabsadaan, laakiin ay ku guulaysan waayeen hal maalin oo dhammaystiran inay haystaan. waxaa lagu gaaray arrintaas iskaashi, wada jir iyo midnimo shacabka reer maxaan ku raahdaa galmudug, oo la iska kaashado oo la iskaga soo baxo magaalooyinka u dhow dhow. ilaa haddana ay kusoo noqon waayeen ama ay haweysan waayeen. intaas waxaa dheer, khayr allaha siiyo xaaf inuu u garaabay, uu arkay muhiimadda ay leeyihiin ahlu sunna, uuna kusoo daray dowladnimada. aniguna markii la i doortay oo aan caleemasaarka la sameynaya aan ku casumay xamar si aan u muujiyo ama aan ugu abaalgudno hawshii wanaagsaneyd ay ka soo qabteen gobolkan. isaguna sheekh shaakir wuxuu ku guulaystay inuu yidhaahdo dowladdii federaalkaan ku wareejinaynaa amnigii magaaladan, si qof walba uu u dareemo in magaaladan la wada leeyahay, ee magaalo soomaaliya tahay, ee caasimaddii galmudug tahay. qof walba uu ku qabi karo kalsooni inuu joogo. aad iyo aad yaan runtii aan kaga mahad celinaya. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga dib u heshisiinta, golaha dib u heshisiinta. juhdiga xoogga leh ay geliyeen, waktiga ballaaran ay geliyeen, meel walba ay tageen, cid walba ay la hadleen, ay dhiirigeliyeen qof walba inuu qayb ka noqdo horumarinta iyo xasiloonida gobolkan. runtii wakti badan iyay geliyeen, dulqaad badan iyay sameeyeen. caawana waa maqlayseen bayaankii ay soo saareen iyo intaanoo qof ay isu keeneen. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo salaadiinta halkan fadhida, ugaasyada, nabadoonada, oo runtii ajiibay kana jawaabay codsigii golaha dib u heshisiinta iyo dowladda federaalka in aan rabno dadka soomaaliyeed ee waalaha ah. waxaa la yihahdaa 12 beelood, laakiin aniga waxay ii yihiin hal beel iyo ii yihiin inay aqbalaan, ay isu yimaadaan, oo la wada hadlo, oo la heshiiyo. sida ha ku dhig halkan ku taalla ay leedahay aan wada hadalno waana heshiino. runtii inaad wakti gelisaan, guryihiina kasoo tagtaan, noloshiina kasoo tagtaan, sidii gobolkan u noqon lahaa gobol xasiloon oo runtii u diyaar garooba fayskii labaad oo ah doorashada. mar alla markii la yaabo waxaa loo noqdaa oday dhaqameedyada loo noqdaa. waana ka jawaabteen. allah ajri xasanaadin ka siiyo. sharaf weyn ayay runtii ii tahay inaan kala soo qayb galo caawa xafladan iyo munaasabadan sharafta badan aan kusoo gabagabaynayno ama aan kusoo xirayno shirweynihii dib u heshisiinta ee galmudug. aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahay, aan kala soo qayb galo, oo aan indhehay ku arko dadka reer galmudug siday u diyaarsan yihiin ama ugu diyaar garoobeen inay isu yimaadaan oo isqaataan, oo ay walaaloobaan, oo ay ku heshiiyaan sidii wax u qaybsan lahaayeen, isu maamuli lahaayeen. haddaan isu imaano oo dadku isu yimaado oo la wada hadlo, waxaa ka soo baxaya wax wanaagsan oo idinka ma aha ubadkeenna iyo waxay sii dhalaan mustaqbal fiican ama mustaqbal wanaagsan siin kara. dib u heshisiintu waa hala wada noolaado wey. ummaddu ha wada noolaato. qof keligiis noolaan kara ma jiro. magaaladan kama maaranto gurceel, gurceel kama maaranto balanballe, balanballe kama maaranto xeraale, xeraale cadaade iyo caabuda kama maaranto, iyo maxaan ku yidhaahdaa gaalkacay. waa la isu wada baahan yahay. marka in aan is ogolaano
oo aan ogolaano inaan wada noolaano way waxa mustaqbalkeenu ku jiro qof gaar u taagnaan kara ma laha dib u heshiisiintu waa process waa wax socda waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn maxaa yeelay bini aadan baa leeyahay khilaafaad waa imaan waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo waxa wanaagsan ay kasoo dhex bixiyaan oo ummadda midayn kara ama isu keeni kara aniga kulliga khibraddeeda markaan idinkaga warramo intaan ka qayb galay ama aan qayb ka ahaa dib u heshiisiinta 10 sano ka hor waxay ahayd anigoo bil prime minister ahaa yaa gaalkacyo waxaa ka dhacay maxaan ku raahdaa galmudugtii hore iyo xibin iyo xeeb yaa isku hub qaatay dhib baa dhacay dadaan waxba galabsan yaa la laayay arrin kasii horeysana waa jirtay oo hore loogu dul qaatay markaan anigu waxaan aaminsan xitaa markaasay dadka ka hub badnaayeen waqtiga hadda la joogo waxay isu diyaarsadeen ciidamo aad u fara badan hadduu dagaalkaas dhici lahaana waa lagu baabi'i lahaa si aad iyo aad yaa loogu baabi'i lahaa maxaa yeelay temperatureka xaaladdu meesha maraysay meel aad u xun ayay ahayd waxaan soo dirnay guddi yaan soo dirnay guddigaasna runtii wuxuu ahaa guddi ugu horreeyey ee arrintaasoo kala dhacda loo soo diro oo dadka dhexdhexaadiya guddigii shaqo fiican bay qabteen ajri xasanad allah ka siiyo waxaa caawiyey labadii madaxweyne xibin iyo xeeb iyo galmudugtii hore yaa caawiyey arrintii waa la soo afjaray dhaqaalo badanna waa ku bixinay si xaaladii dhibkii loo yareeyo ilaahay waa nagu guuleeyey isla markaas bilo ka bacdi waxaa dhacay galmudugtii hore iyo puntland yaa haddana isku dhuftay xoogaa way iska laayeen iyagoo isu hub aruursanayay yaan haddana guddigii mid lamid ah yaan haddana soo dirnay guddigaasi sidaasoo kale u shaqeeyey labadii beelood ee waalaha ahaa ee meeshaas deganaa ilaahay waa kala baajiyey dhib ma dhicin inkastoo dee dhibab kale uu dhici doono kadib laakiin markaasi xamaasadda siday ahayd iyo xaalad siday ahayd waa ka degtay halkaasna waxaa ka yimid dib u heshiisiin iyo dadka in la walaalayo waxa igu soo xigtay marka socdaalkaygii halkan aan ku imid oo aad halkan igu soo dhaweyseen oo ahaa socdaalkii dheeraa ee dib u heshiisiinta oo aan dib ugu noqonay meeshii aan kasoo bilaabnay oo ahayd gaalkacyo oo kala xirnayd oo labada shacab oo waalaha ah aanan soo gudbaynin biyaha xitaa aysan kala qaadinayn eriyada u dhowna ay tahay eriyada aan la deganayn oo guryuhu burbursan yihiin meeshaasna waxaa ahaan jirta waa suuqii faras magaalaha ahaa ilaahay wuxuu nagu guuleeyey inaan odayaal u sameyno 60 ah dib u heshiisiin u sameyno khayr allaha siiye taliyahaygii markaas ciidanka xoogga gorod yaa meeshaas wuxuu joogay muddo 2 bilood iyo bar ah yuu joogay oo ka shaqeynayay sidii dadkaas waalaha uu walaaleyn lahaa dhagaxdii xunxunka ah dadka kala hayay waa laga qaaday ilaa hadda dadkiisii bay waala u yihiin oo dhibaato kama dhicin ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dhibaatada ka ilaaliyo dadkaas waalaha waa waxaa horey soomaali u oran jirtay kugu dhimay ama kaa dhimay wiilkaas dhinta wuxuu ka dhintay cid walbo ka dhintay marka waa dhici kartaa hal qof oo tuuga wax dila shabaab soo dhunta oo qof dila waa dhici kartaa laakiin dagaalkii zuuga iyo baasuukaha iyo BKM-ka iyo muxuu ahaa maxaan ku rahdaa hubkii cuslaa ee la isku adeegsan jiray oo markii faraha isla galo 50 qof 60 qof ay ku nafwaay jirtay ma jirto alxamdulillah ilaahayna ha ka badbaadiyo caabudwa oon ognahay magaalo maxaan ku rahdaa kortay oo runtii population badan u degan yahay intii dagaalka sokeeye ka dhacay oo kala xirnayd oo 4 qaybood u kala xirnayd muddo 7 sano ah inaan tagnay oo iyagana aan odayaal guddi aan u sameynay maalintii laga bilaabo ilaa haddana waxba kama dhicin alxamdulillah dadkiina waa isku furmeen waa wada nool yihiin dabka iyo waa kala qaataan iyo sokorta iyo cusbada iyo waa kala adeegtaan ilaahayna waxaan uga baryaynaa nabadaas inuu u ziyaadiyo xiraale alxamdulillah waa bilownay laakiin ra-iisul wasaaraha soo afjaray insha allah waxaan rajeynaynaa iyada naftigeeda dadka waalaha oo wada degan xiraale oo walaalaha
iyagoo naftigooda ilaahay sharta ka qaado oo dhib dambe aysan arag dhig dambena uusan ku daadan. intaas waxaa dheer magaalada Marka oo muddo 30 sano ah lagu dagaalamay oo laga qax oo laba saf kala ahayd inaan iyadana ku guuleysan ilaahay nagu guuleeyay dadkaas waalaha oo halkaas ku dagaalayay muddada dheer inaan isku dhafna ciidankii dagaalamay 30 sano oo aan walaaleynay haddana ay nabad tahay ilaahayna ha u ziyaadiyo nabadaas. hal kaftanaan ku darayaa waxaa jira isbitaal xamar ku yaalla oo aad uga shaqeeya hawlaha dhaawacyada iyo lafaha jaba iyo dagaalada wixii la xiriira. marka wuxuu igu yiri nin dhakhtar aan arkay wuxuu yiri niyahu sidii aad uga tagtay madaxweynuhu sidaad uga timid meeshii gobolada dhexe dakhligeeni waa yaraaday waa kici rabnaaba hadda dawladdu ma caawin kartaa. markaas waxaan ku yiri maxaa dhacay haddii aan tagay meeshaas maxaa ka qoseeya businesskaaga iyo isbitaalkaaga. wuxuu yiri meeshaas khayr aan noogu jirayo dad badan noogu imaan jiray bishii markay ugu yartahay 60 qof oo dhaawac noo imaan jirtay hadda hal iyo laba qof noo yimaada oo tuuga soo dishay. marka wixii naga khasaaray lacagta naga khasaartay sayelna inaan iska xirnay taageerta isbitaalkii ilaahay meel kale ha ka siiyaan ku yiri. wuxuu ku daray dadka qoda maxaan ku raahdaa qabriga waa jecel yihiin qubuur badan ay qoraan inay qodaan dhakhaatiirta noocaas oo kale waa jecel yihiin dagaalo badan inay dhacaan iska ilaaliya dagaalada dad badan baa ku farxaya dagaaladiinni. maxaa xiga marka tan arrintan quruxda badan intaanoo qof oo isu timid oo ehelka ah oo walaalaha oo isku dhiigga isku dhaqanka ah oo aan ilowno marmarka qaarkood ilaahay inaan u noqonno aan ku xamdi noqno aan u mahad celinno. maxaa yeelay intaanoo qof aan wada hadlayno iyo Soomaaliya oo dhanba looma kala turjumo luqad shisheeyna kuma hadlaan oo waa isku dhaqan oo waa isku diin oo waa sunni. saasay tahayna waxaad moodaa Afrikadii kala qaybsanayd oo la isu keenay oo luqadaha badan ku wada hadlayay oo luqadii Yurub ka ahaa ay isku afgaranayeen inayna caawinayaan waana uga mahad celinayna caawinaadooda laakiin annaga inaan caawino maxaa yeelay annagii yaa isku mid ah. marka inaan ilaahay ku xamdi naqnaado rabaa. waxaa tan xiga marka labo midood inaan yeelno mid waxay tahay sidii la yaqaanay oo burburkii iyo wixii ka dambeeyay uu gobolkan ku jiray iyo guud ahaanba Soomaaliya oo la kala taagnaa oo la kala shaqsanaa oo la kala irdhoobay oo aan isku faraxsanayn oo la iswada gaadayay oo aan isla noolaanaynin inaan ahaano aan ku nagaano oo magaalo u gudubta aysan jirin. dhuusamareeb aysan tagi karin cadaado aysan tagi karin gaalkacyo cadaado aysan caabudaaq tagi karin caabudaaq aysan xiraale tagi karin dhexdooda aan la wada mari karin inaan saas sidaa ahaano. taasna waxay tahay cawaaqibkeeda resultkeeda wuxuu yahay nolol la'aan. haddii mar nabad aysan jirin nolol ma jiri karto horumar bini aadanna ma jiri karo dhaqaalada ma jiraayo ganacsi ma jiraayo iskuul ma jiraayo isu socod ma laha cid idin imaanaysa oo idin soo booqanaysa ma laha. iska daa dekad la dhiso iyo adduunyo kale iska daa dawladdii aad haysataan xitaa si fiican uma shaqayn karto. waxa weeye waa hal dhinac in la yeelo oo dadka aad u dambaysaan oo dhakhaatiirtaas aad idiin sheegayo aad ganacsiga u xoojisaan. tan kale waxay tahay inaad is ogolaataan inaad wada noolaataan inaad isu tanaasushaan inaad ilaahay ka baqdaan inaad is cafisaan. magaalo walba magaalada kale dadka jooga inay waali yihiin oo aan laga xigin magaaladan sidii ahaan jirtay ay dib ugu soo noqoto oo sidii ahaan jirtay Soomaali dhan baa wada deganaan jirtay dadkii oo dhan ay dib ugu soo noqdaan ay dib u noolaato dhaqaalihii u soo kaco maalgashi shisheeye u yimaado. taasi waxa weeye waa wax runtii
aad halkan fadhidaan saan aaminsanahay taasaanan qaadanaynaa taasaana wanaagsan taasaana nolol noogu jirtaa taasaana ilaahayna faray taasaan qaadanaynaa ugu dambeyn haddii taas aan sameyno intaasaan sameyno macnaheedu waxay tahay dalkan waa istaagay dowlad goboleed walba sidaanoo kale noqonaysaa waxaa imaanaysa wada shaqayn dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe oo federaalka ah haddee wada shaqayn timaado khilaaf ma jiraayo waxaan la tartamaynaa caalamka marka intiisa kale yaan la tartamaynaa oo aan hubo inaad og tihiin hadda inaan ka harnay muddo 30 sano inaan ka harnay wax badanna lagama horeeyo maxaa yeelay Soomaali baan nahay dad firfircoon baan nahay dad isleh baan nahay dad dalkooda kheyraad badan yaan nahay dad aqoon leh baan nahay dad islaam nahay dad qabla nahay muddo yar yaan ku soo noqon karnaa muddo kooban yaan ku soo noqon karnaa caalamku waa la kala hormaraa waxay tahay dalkan waa istaagay dowlad goboleed walba sidaanoo kale noqonaysaa waxaa imaanaysa wada shaqayn dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe oo federaalka ah haddee wada shaqayn timaado khilaaf ma jiraayo waxaan la tartamaynaa caalamka marka intiisa kale yaan la tartamaynaa oo aan hubo inaad og tihiin hadda inaan ka harnay muddo 30 sano inaan ka harnay wax badanna lagama horeeyo maxaa yeelay Soomaali baan nahay dad firfircoon baan nahay dad isleh baan nahay dad dalkooda kheyraad badan yaan nahay dad aqoon leh baan nahay dad islaam nahay dad qabla nahay muddo yar yaan ku soo noqon karnaa muddo kooban yaan ku soo noqon karnaa caalamku waa la kala hormaraa haddii hadda aan 20 kale ku darno waana laga tagayaa si aada yaan looga tagayaa aan ka daba tagi karin haddii laga tagana waa lagu gumeynayaa dhaqaalaha la isku gumeystaa xoogga ciidanka la isku gumeystaa dowladnimada la isku gumeystaa deganaanshaha siyaasadda la isku gumeystaa sida hadda aan nahay wax qurxoon maaha aniga soo madaxweynihiin maaha wax qurxoon maaha markaan madax is aragno oo hadda la ogyahay dalka inuu saan u qaybsan yahay oo dhibkan u jiro iyo nin dadkiisii midaysan yihiin dhaqaalihiisii cirka u marayo dowladdiisa u shaqayso dakhligiisa u badan yahay xiriirkii ula leeyahay caalamka lagu ixtiraamo iyo aniga isku meel ma istaagi karno macnaha hoos baa lagu fiirin waxaan ahay waxaad tihiin haddaad wanaagsan tihiin anna waa wanaagsana waa intaas wey marka wixii naga hadlaabay waa naga hadlaabeen ilaahayna noqono waqtiga gadaal buu u badan yahay maanta yaan la fiirin yaan la oran maanta haddaan wixii waayo nin kale isu waxba helin yaan la oran inaad tiraahdo allah ku calfo walaal waa ku siiyey waa kuu quuray adna biri ii quur oo kuu tanaasulay intaas way wax lagu kala hormaro haddii intaas aan helno dalkan waa istaagi mustaqbal fiicanna wuu lahaan waxay keenaysaa marka in xiriirkeenu uu dibadda uu fiicnaado oo nala ixtiraamo iyo keenaysaa waxay keenaysaa dhaqaalo badan dalkan u yimaado oo la maalgashado iyo keenaysaa khayraadkeenna inaan u dhacno iyo keenaysaa waxaan isku haysanaa hadda waxba ma ah wax ka badan yaan haysanaa laakiin ma aragno ilaahayna nama tusin waxaan ka rabnaa marka natiijada maanta ka soo baxda meeshaan oo golahan maxaa la yidhaahdaa dib u heshisiinta iyo idinka aad ka wada shaqayseen natiijada aan ka rabno waxay tahay xasilooni siyaasadeed gobolkan inuu helo xasilooni siyaasadeed inuu helo dowlad wanaagna uu helo labadaas wey labada lagu kala hormaro xasilooni inay jirto oo la ismaqlo oo la wada shaqeeyo iyo in dowlad wanaag jirto musuqmaasuq laga fogaado oo ilaahay loo noqdo musuqmaasuq waa xaaraan wey waa ammaano naloo dhiibay ammaano lidin dhiibay wey haddii aad mas-uul tahay waxa kaliya oo cadaabtaa ku tagayso waa ammaanadaas haddaad ku takrifasho maxaa yeelay waxaa leh ammaanadaas lagugu dhiibay nin qof ilmo caloosha ku jira nin dhagala nin indhala
nin aan hadli karin nin aan gaari karin nin xanuunsan ama qof xanuunsan yaad u haysaa marka haddee adduunka hor u marayna dhaqankaasay leeyihin waxay nooga hormareen wax kale maaha waxay iska ilaaliyaan ammaanaday iska ilaaliyaan qof walba mushaharkiisa ma dhaafo ma aado qof kale jeebkiisa iyo qof kale wixiisa ma raadsado wixiisu iimaansadaa waa inta diinteena subanayna farayso dowlad wanaag ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inaan uga gudub natiijada midnimo in gobolkan runtii dhibka badan soo gaaray oo aada loogu dagaalay dad badan ay ku baxeen dad badan ay dhaawac ku yihiin ilaa hadda in la mideeyo shacabkii la mideeyo oo qofkii qof dila qabiil ma aha waa shaksi laga yaabo inuu waalan yahay laga yaabo inuu criminal yahay oo qaatil ah ha la marsiiyo waxa uu qabo sharciga marka ha la marsiiyo yaan la qarin maxaa yeelay qof kale oo aan waxba galabsan yuu dhibkii gaari community oo dhan iyo ummad oo dhan yuu dhibkii gaari qofka sharta wada hal iska fogeeyo nabadda in laga shaqeeyo haddii ummaddu aysan nabad haysan horumar ma gaari karto marka nabadda in laga shaqeeyo oo idinka farta laydin kusoo fiiqo aad tirahdaan annagu siduu professorkii shirwac sheegay nabaddaan u istaagnay ilaahna u noqonnay inaad tirahdaan ugu dambeyn waxaan rabaa halkan in aan shahaado sharaf ku siiyo dad runtii mudan oo shaqo wanaagsan runtii geliyey galmudug sida ay